adon tabarhayn talanaan hayn oo talaab gabay kolka tooyoy niman turuq yale oo tafaabulan oo aan ku turin ku taxataan illa gula tago tashan weyna waa lagu tarikayo tashan weyna waa lagu tarikayo. kulanti wacan oo wanaagsan khayarta hawada naga dhageysatay ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka yaa fikira federaalka Soomaaliya oo ah taxane aan ku falanqeynayno soo ifbixi federaalka Soomaaliya. warbixin qowarar reer galbeed ah ay ka diyaariyeen sidii loo dhisi lahaa dawladnimada Soomaaliya sanadii 1995 ayaan si weyn barnaamijkan ugu falanqeyn doonaa. qaybtii koowaad ee barnaamijkana waxa aad ku dhageysateen sababtii ka dambeysay diyaarinta warbixintaasi. aqoon-yahano Soomaaliya oo goobjoog ahaa xilligii warbixintan la diyaariyay ayaa sheegay in raggii warbixintan diyaariyay oo ka mid ahaa professorka loo yaqaano Ian Lewis ay gooni ula kulmeen qabaa'ilada Soomaalida oo xilligaas ku mashquulsanaa in ay ku kala aargoostaan utimo dhexdooda yaalay isla markaana dhulka oo dhan uu ahaa mid colaadi ay tin iyo ciriba gaartay. diyaariyayaashii saldhigga federaalka Soomaaliya waxa ay si weyn ugu dhiirigelinayaan Soomaalida in awoodda la baahiyo halkii dawlad dhexe ay dalka ka wada talin lahayd iyagoo cuskanaya dagaalkii dalka ka bilowday sanadii 1991 oo Soomaalidu ay mar qura kala booday. waxaa jira erey ka turjumaya fikraddii iyo wixii reer Yurub ay la damacsanaayeen Soomaaliya, ereygaas oo si weyn uga soo dhex muuqday warbixintii ay diyaariyeen qubarada reer galbeedku. waa ereyga Soomaaliyadii hore. micnaha uu xambaarsan yahay ereyga Soomaaliyadii hore ee reer galbeedku ay isticmaaleen sanadii 1995 ayaa waxaa dad badan oo Soomaali ah ay u fasireen in loola jeedo labadii gobol ee midowday 1 Juulaay sanadii 1960 oo maamulka Somaliland uu sheegay inuu madax banaanadiisii mar kale dib ula noqday markii uu dumay xukunkii dawladii uu hogaaminayay madaxweyne Siyaad Barre Allah u naxariistay sanadkii 1991. waa kan Xasan Cabdi Xayle oo goobjoog u ahaa markii magaalada London lagu soo bandhigay warbixinta ay diyaariyeen qubarada reer galbeedku oo ka hadlaya micnaha uu xambaarsan yahay ereyga Soomaaliyadii hore ee ay isticmaaleen qubarada reer galbeedku. ereyga ay leeyihiin Soomaaliya hore ma aha Soomaalidii taariikh ahaan soo socotay ama qabaa'ilka soo xigmadii intaan gobonimada la qaadan ka hor macaha waqtigii dowladnimada Soomaaliya ee bilaabtay ilaa 1960 ahaa ilaa dhicitaankii oo ay dhacay dowladii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre madaxda ahaa 1991 muddadaas adiga 31 sano ah ay u jeedaan waqtiga macnaha qaabkii dowladnimada Soomaalida halkaas u jeedaan. haddii marka sida afka lagu dhifto macnaha dowladahaas waxay ahayn dowlada centralized ama dowlada dhexe ahaayeen. marka waxaa dareemaysaa in dowladihii dhexe inaan loo socon oo Soomaaliya dagaalka kadib ama halka ay nimanka reer galbeedka ay soo bandhigayeen inuu ahaa dowlad aan marna ahayn dowlad dhexe. marka dowlad dhexe waa waqti cusub oo ahdi cusub ah sida marka dowlad oo yani aan dowlad dhexe ahayn haddii dowladnimo cusub bilaabanayso macnaha waa dowlad la dhihi karo jamhuuriyadii labaad ama dowladii labaad ee Soomaaliya markii la fiirsho kii marka ujeedooyin badan marka qaarkood ay ka fahmi karaan runta marka markii la abaaro waa hab dowladeed oo cusub oo aan kii 60 soo jiray ilaa Maxamed Siyaad Barre ka dhacay aan lug ku lahayn shaqana ku lahayn. marka وكين كره معناه تصفح وكين كره الصومالي إني كره وكين كره دخل كود إني ليجل شرعان إني هذا أنا وكيل لحدا كان كنت مثلا ما كره في الصومالي كان كديون إني جمهورية الصومالي كجوان إني كره هذا قاب كي مرة لحدا كهوا أو بربروا وقت ذا عصب الصومالي هروا ولا جسوتي hadda anagu kuma jirno midowgii deegaanka waa dhigi karaan walaa saa dhigi kara gobollo kale waa dhigi karaan Soomaaliya sida ay xaalku yahay waa la ogyahay inaan dowladda xaan loo socdo. waxaa sidoo kale warbixintan lagu soo bandhigay daliilo ku saabsan in Soomaalidu ay yihiin dad noloshoodii asalkuba ay dimuqraadiyad ku salaysnayd.
guddiga warbixintan diyaariyey waxa ay arrintan u daliishanayaan in Soomaalidu ay odayaashooda go'aanka gaari jireen iyagoo xoogga saari jiray in go'aanadu ay noqdaan kuwa loo dhan yahay halkii tiro kooban oo kaliya ay go'aanka gaari lahayd balse doorkii dumarku uu xilliga meesha ka maqnaa quwaradii warbixintan diyaarisay waxa ay meesha ka saareen in bulshada Soomaalidu ay tahay mid ay maamuli karto dawlad dhexe iyagoo daliishanaya dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida waxa ay daliishanayaan in Soomaalidu aysan lahayn hogaamiyayaal joogto ah oo awood u leh inay u taliyaan dadka ay hogaamiyaasha u yihiin taasi oo gabi ahaanba meesha ka saaraysa bay yiraahdeen in Soomaalidu ay yihiin dad dawlad dhexe ay maamuli karto haddaba masaxba in Soomaalida dhaqankeedu uu ka turjumayo dimuqraadiyadda maxaase ka jira in Soomaalidu aysan lahayn guddi talisa oo dadku awaamirta ay soo saaraan uga dambeeyaan markii la eego dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida waxaan su'aashaas hordhigay Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah gudoomiyaha akadeemiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta waxa uu ku jawaabay sida su'aasha aad i weydiisay ee ah dhaqanka Soomaaliyeed ma ka turjumaya dimuqraadiyadda ereygan dimuqraadiyaddu annagu dimuqraadiyad umaanan garanayn Soomaalida waa ereygan waa erey galbeed nooga yimi laakiin sida aan kulli qorshaha ay la tahay ama sidoo ereygu u dhigmayo hadii dhaqankeena hore loo eego waa dadku inay wax wada leeyihiin haday tahay wax lagu nool yahay haday tahay talada labada taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaalidu way lahayd dimuqraadiyad waliba mid qaali lahayd waxaad ku garan kartaa intaan su'aashaada jawaabteeda gelin Soomaalidu waxay ku nooleed meel edeg ah oo xiran oo dhaqan shisheeye iyo nolol shisheeye iyo faragelin shisheeye iyo tala shisheeye midna aan shaqo ku lahayn si wanaagsan oo wacanna way u noolaayeen wax walba iyaga haystay xoolo ay ku noolaadeen way haysteen dharkooda iyo hoygooda iyo qalabka ay wax ku cunaan iyo kay ku dagaalamaan iyo kay xidhaan waxoo dhan dhulkooda iyo waxay ka samaysan jireen dhirtooda iyo xoolahooda talada way wada lahaayeen oo cid kale u talin jirtay male xeerar ay ku kala dambeeyaan bay lahaayeen mar haday sidaa taw xerada oodan ay ku noolaayeen qofna aan u baahnaan jirin oo isku filaasho ay ku noolaayeen dimuqraadiyad horta meesha way ka jirtay maxaa yeelay Soomaalidu waxa la yiraahdaa qofku inay dimuqraadiyad ka jirto waxaad ku garanaysaa ama waxyaabaha ay umadu leedahay oo ay ka simantahay waxa kamid ah waxay leedahay qowmiyad kasta waxay leedahay baa la yiri saddex waayeel taliyay leedahay wadaad duceeyana way leedahay wiil dirirana way leedahay marka bar way ka wada marka waayeel taliye markii la yiraahdo cid walba uu taliyaayo wadaad duceeye markii la yiraahdo culimada cid walba quraanka uu akhriyaa ka akhristaayo waa wax la wada leeyahay haddii cadow dibadda ka yimaadana wiil diriray lahayd iyadana waa difaaci dhulkii iyo dadkii noloshoodii ayuu difaacaya marka Soomaalidu way lahayd oo marka xeerarka la eegayo iyo dhaqanka Soomaalida la eegayo iyo garta iyo waxa soo dhan la eegayo waxa la oran jiray wax waliba waxa weeyaan waa in loo wada dhanaado ayaa laga fakari jiro xagga dimuqraadiyadda marka la eego laga fakari jiro in la wada ogaado wax مثلا تصالحان Soomaalidu waxay ku maamaadaa waxay oran jirtay saddex cuur bay ku fiican yihiin cuur bay ku fiican yihiin waxa ku fiican aqligu cuur buu ku fiican yahay ciidankuna cuur buu ku fiican yahay caanaha ilaha ama riyahan cuur bay ku fiican yihiin in la sugeeyo annaga waxay naga khusaysaa waxa weeyaan dulucdu aqliga cuur buu ku fiican yahay nin keligii kelitali ma jirin dimuqraadiyadda ay halka ka eeg kelitalis ma jirin cuur buu ku fiican yahay waxa weeye nin kasta oo garasho u saaxiibo laga fakaray inuu garasho leeyahay waa loo yeeri jiray talada waa laga qayb gelin jiray oo waxa la oran jiray wax la isku og yahay hadaanay canaan keenin ceeb ma keenaan oo waxa weeyaan halkaas ay ka fakari jirtay ninna keligii talada ma muruqsan jirin marka halka horta waxaad ka garanaysaa noloshii aan ku iri xirada xayndaabka ay ku xirayd ayaaba noo roonaabaan leenahay anaga adduunyada isku careedaga isku wada noqotay gabigood isku wada furantay anaga waxa weeyaan islaam baa laga sheego inan ay jecleed ayaa dhaqaaleyn jirto oo buul xun bay iska deganaayeen nolol hoose ku noolaayeen way dhaqaaleyn jirto hooyadeed bay dhaqaaleyn jirto si wanaagsan bay hooyadeed u haysay bariga dambe nin maal qabeena guursaday baa la gabadhi markuu guursaday meel sar dabaq ah ayuu gabadhis dejiyo saaray islaantina buulkeedii bay isaga jirtaa toddobaadiyay soo booqan weyday markaas hooyadii waxay ku tiri baa la gabadhi maalinkii dambe hooyadii baa oranaysa hooyo aniga daarfuulku waaba iiga dara
daarfuulkan daartan aad fuushay wuu iga darayba annaga isku furfuranka wuu nooga daray dimuqraadiyadeeni iyo wada tashigeeni wax wada lahaanteeni Soomaalidu ay dhaqanka u lahayd ayaa inoo wanaagsanayd berigaas nolosheenu tirxaan lahayd oo dhaqankeenu nadiif ah oo afkeenu nadiif ah oo xeerarkeenu nadiif ahayeen oo ismaamulkeenu nadiif ah oo xoolaheena iyo waxa dhaqaaleenu iyo dhaqaaleenu nadiif ah oo wanaagsanaa inagu filaa hadda adduunyadu waad aragto maxay dimuqraadiyad ba inoo keenay dimuqraadiyadeena hore ka fiicnay way lahayd Soomaalidu dimuqraadiyad mid ka fiican tan bay lahayd Soomaalidu guddi talisa way lahayd maxaa yeelay mararka qaar kood baad marka ugaasyada iyo salaadiinta iyo boqorada iyo iimaanada iyo wabarrada markaad eegto taariikhdooda aad baadho waxa laga yaabi jiray isku beelbeel xitaa ma ahan jirin waxa laga yaabi jiray in nin hal nin oo ugaas ama suldaana ama boqor ama iimaana ama wabar ama malaaqa inuu beelo badan oo kiisaba aan shaqo ku lahayn uu taliyo ayaa dhici jirtay Soomaalidu guddi way lahayd talisa waxaad rabtaa waa guddi talisa inay lahayd Soomaan marka Soomaalidu way lahayd waxaad ku garanaysaa in guddi talisa lay Soomaalidu waxay tiraahdaa xaaje geed lihi yaani geed walba ku gudilin guddi bay leedahay talisa oo go'aanka oo u dhinto oo iyada wax laga qaato ayada reerku ku dhaqan yihiin marka lagu leeyahay xaaje geed lihi waxa weeyaan guddigii lahaa waxani lahaa ayagaasa goynayo talada waxa wanaagsan iyo waxa u xun beesha garanay iyaga geed kale iyo dhibaato kale iyo hawl kale iyo hagelin ay la oran jirtay Soomaalidu marka waxa weeyaan Soomaalida mabay jiri lahayn xeer ahaan iyo dhaqan ahaan iyo nolol ahaan sidan umaynan adkaysaneen Soomaalida maxay waa dhowr iyo 10 milyan ciifka meesha la yiraahdo miyaad aragtay meesha la yiraahdo halka la yiraahdo laamo meesha la yiraahdo oo bambaasada lafteeda geey ilaa halkana Eritrea intaasay badda haysataa Soomaali baa degan tiradooduna 20 milyan way ama wax ka yar maxay inta ku suurto gelisay inay dhulka haystaan guddi talisay lahayd kala dambeeyna ayay lahayd iyo dhaqan bay lahayd ku kala dambayso maxaa yeelay waxa kale oo lahayd Soomaalidu ay tiraahdaa baleeg inay guddi lahayd madax meel ka koreeyo la salaaxa male maxay tahay maamaada dhaqan maxay tahay nolosheeda waxa weeyaan maamaha tilmaanteedu waxay tusaysaa meel wax ka go'aan inay lahayd guurti inay lahayd dhaqan inay lahayd ayay ku tusaysaa oo ay dad hamayaaqa oo isbarbaryaaca oo waxay doontaan sida ugaadha iyo sida xayawaanka u nool ay ahayn dad dhaqan leh xeer leh kala dambeyn leh guddi leh geed leh wax haddana wixii ay gooyaan aan laga daba hadlinay fuliye inay ahaayeen ayaa meesha kaaga muuqata marka waxa weeyaan dadka hadda ku oranay nin baa sheeko nooga sheekeeyo wuxuu yiri bal sida wax loogu kala goo awr baa la hadlayaa awr ayaa la hadlayaa wuxuu yiri awr buu lahaa nin baa awr lahaayo awrkii baa intii subaxii la dabrayo la seeteeyay baa la foofiyay meel baa lagu xiray markay maqribki tahay wuxuu ku yiri wiilkiisii aabe awrkii wuu day waa maqribkii soo xaray oo u tag awrku uu qoqoray wiilkii markuu u tago inuu soo kaxay uu damcay uu ku doobiyay uu baqay wiilkii uu soo noqday wuxuu yiri aabe awrkii way diiday islaantii buu diray hebloy bal adaa ku dhaamee orad baa awrka adu aad ku yaqaan intay u tagtay ayay tiri kaalay koran cadow baa la oran jiray awrka kaalay bay tiri keenso koran cadow wuu ka diiday islaantii waxa weeyaan uu ku guuxay way ka baqday iyadana maanta abuu qooqanay oo ka soo tagtay wuu soo diiday bay tiri awrkii intuu fakaray oo kabiisi gashadu u tagay awrkii wuxuu ku yiri koran cadow keenso gadaashay cid dambe ku iimaanaysa male Soomaalida nolosheeda siyaasi ahaanji wuu keensadaa liiro awrkii intuu soo kaxay guriga keenay Soomaalida go'aankeedana siyaasi ahaanji ama beel ha ahaato ama nin ha ahaato meelay ka go'day lahaan jirtay oo waxa la oran jiray geedkan haday ka go'ay waayaan wax geed dambe wax ka go'ayaan ma hadii hebel guurtidan wax ku gooyin waayaan ama wax ku sheegi waayaan ama taladooda aad qaadan weyd cid dambe oo kaaga dambeynayso wax ka helaysa ma jirto siyaasi ahaan jirtay go'aanka marka waxa weeye Soomaalidu guurti bay lahaan jirtay guurti u baahan dhaqankeeda intii la qoray adduunyada inay wax u sheegna iyo lahaan jirtay Soomaalidu waxaa halkaas ku dhandhagaysiyaal qaybtii labaad ee barnaamijka yaa fikiray federaalka Soomaaliya anigoo Maxamed Axmed ayaa idin la socodsiinayay tan iyo intaynu qaybta saddexaad ee barnaamijkan ku kulmi doonaa waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo tagtadayo
timaadada qabo waa tusaale wax ku taransada ha iska tuurina matawaawaca kabar li'idaan ku tasawna misa taagiyo talawacan baan ku tasmaynaa hallow laba talo oo mataana si inoo roon noo tilmaano nagu taageer nashawaynaya waa lagu talintooyo nashawaynaya waa lagu